Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada mar kale Moga Farakas. Maanta waxaan rabaa halkaas suuqa inaan wax yar aan fiirino oo trade halkaas ka qaato hadduu ilaahay idmo. Suuqa koley maalmahan iska ahaa iska degan. Maanta waxa waaye meesha NY ay ku furantay halkaas hadda ujeedaa. Waxaan trade-ka waxaan soo saar rabaa meesha NY ay ku furantay. Trade-aan rabaa halkaas inaan ka qaato. Trade-kaas markaan ka qaato hadduu ilaahay idmo waxaan fiirin doonaa ilaa meeshii oo target-ka aan ka lahaa. Targetkii inaan fiiriyo meeshuu geyn doono horta trade markaa qaadatid kow waa inaad lahaataa meesha aad ka geli lahayd marka labaad mustaajida markaa heshid trade-ka aad ka geli lahayd meesha ugu degi lahaydna waa inaad og tahay sababtoo ah gaari haddaad soo raacdid aadan ogeyn meel uu u socdo hadda waxaa kugu adkaanaysa meelaa ugu degtid intaas leedahay meeshuu ka imaaday aan rabaa inaan ugu dego marka waxaa laga yaabaa inaad ku wareertid marka alxamdulilah kuley maanta waxaan rabaa halkaas inaan ka fiiriyo trade-kii zoonkad uu maraay GBY oo badanaa had analysis badan aan ku sameeyey zoonka hadda uu maraya inaan trade ka qaataan rabaa kadibna aan fiiriyo meesha u dambeysa oo laga gaari doono si xaalad ay noqon si xaalad ay noqon karto tan kuley stoplosskeeda wuxuu noqon karaa one hourka markaan geeyo kadib badanaa stoploss waxaan ku manage garayaa one hourka wiiga hoostiisa one hourkaas one hourka ka dambeeyey wiiga hoostiisa wiigistaan keena hadduu ilaahay ilaa afartan meelahaas afartan iyo dhowr bib waay badanaa afartan iyo soddon iyo shan bib ay ugu badneed stoplasskayga laakiin istiraatiijiyadan waxay ku shaqeysaa stoplasska hadduu dheer yahay managementigaada wuu fiican yahay kule wax weyn misbedeleyso halkaas hadda oo ujeedid maxaa lahay suuqa intriga uu ka yahay oo hadda aan ka qaatay tradeka kadib waxaan ka rabaa hadduu ilaahay stoplasska haddii afartankaas bib stoplasska qaybtaas intriga halkaas markuu yahay stoplass waxaan ka rabaa halkaas inuu soo gaaro hoostaas tusaale ahaan qofka marka waxaa laga rabaa hadafka inaad ka lahaatid meesha ka qaadan lahayd faa'iidadaada iyo meesha oo geli lahayd tradeka markaa qaadanay wax yar waxaa u malaysaa inuu hoos usoo socdo oo dowladdan lagu qabtay laakiin wax weyn maahan 15 minutkiyan ani 15 minutka koowaad oo suuqa markaan furo wax ku manage gareeyo iyo 15 minutka ku xigo badanaa waxaan fiiriyaa nuska saac u horreeyay markuu idhaafo kadib baa tradeka iska manage gareeya waan iska sugaa 15 minutkaas kuley haddii wax yar soo hoostaas uu soo aado ilaa stoplaskan meel fiican noo yaala hoostaas meel second noo yaala hadduu nagu soo aadin okay hadduu naga qaadano kuley waxaan qaadan doonaa 1% riskiga aan ku talagalnay haddii kale waxaan qaadan doonaa faa'iidadeena taas waxa waaye suuqa u shaqeeya waaye faa'iidada waxaan ka rabaa qaybtan kore qaybta kore waxaan u saaraya wax kale maahan tusaale ahaan marka one hourka markaad tago wax badan calaamad badan ay saaran waxaan geyn doonaa GBY lacag kale oo nadiif waxba ii saarneen tusaale ahaan one hourka markaad tagtid hadda ujeedid calaamad waxaan soo saaran doonaa hadduu ilaahay idmo long positionka tusaale ahaan hadda meeshan waa one hourkan wuxuu sameeyey week kor iyo week hoos one hourkan waxaa malaysaa inuu week hoos iyo week kor uu sameeyey one hourkan hadda oo soo socdan waxaa laga yaabaa week kor maadaama uu haysto weekis hoos inuu soo doontay badanaa suuqa loo joogo ku shaqeeyaa week kor iyo week hoos meesha targetka aan ka rabano meeshaas kor waay meeshaas kore oo ah qaybta oo suuqa ka furmay saaka London Open Asian High share waxay samaysay meesha isniinta uu suuqa gaaray ay kala gaartay masha Allah kuley talaadadii waa lagu soo laabtay hoostaas ayay soo gaartay shalay trade ma qaadanin maanta laakiin halkaas aan trade ka qaatay trade hadda meesha oo hadda aan maray suuq meeshaan iska qaatay marka 15 minutkaan geeyno ayaa si fiican waadax loo arki karaa calaamadihii aan saarto calaamadii waxaan saaran doonaa hadduu ilaahay idmo long positionkan halkaan saaran doonaa 15 minutka meeshan oo NY London ay ku furantana kuley calaamadaas kore oo aan si geyn doonaa zoonkii ay ku furantay waa London targetkeyna wuxuu ahaan doonaa qaybtaas ay ku furantay London Open ayay waxay ahaan doontaa targetkeyga kuley target hadduu ii gaar okay hadduu gaar waayana kuley waa wax ma dhibayso maalin kale ka badan adduunkan waxa waaye hal maalin laba mar ugu dhisan marka maalin kasta waa inaa 1% 2% 1% suuqa waxaa ka heli karta aa ka heshid oo faraha ka qaadid ay noqon kartaa marka fiirisid tusaale ahaan shalay meeshuu ku furmay iyo meeshuu ku xirmay isdhaafta ma lahayn sababtoo ah meeshuu ku furmay iyo meeshuu ku xirmay waxay ahayd isku meel markaas wax tirid ma qaadan sababtoo ah zoonkan meeshuu ku furmay iyo meeshuu ku xirmay meesha calaamada aan saartay waa wax tirid aan qaatay ma lahayn isray wax tirid aan qaatay ma lahayn tiridka waxaa malaysaa in stoplosskeena loo soo dhawaaday oo si fiican lagu soo dhawaaday stoplosskeena aniga waa markasta wiigan kow aan keeni lahaa waa laga saari lahaa laakiin wiiga badanaa waxaan sameeyaa wax yar hoos aan u sikadaa si uusan iga saarin si xawli ayay ku socotaa lacagtan DJ
badanaa waxaa laga yaabaa inaad stop losska ay kaaga saarto kadib TP ay kaaga dhacdo taasna in badan aan hore u arkay sanadka hore dhan aan ku trade gareynayo baagtas aan ku sameynay in badan way igu soo laabatay kule casharo badan ka soo qaatay laakiin hadda space fiican inaan siiyo waaye stop losska hadda meeshan markaan soo saaro waxaan arki karnaa numberska stop losska numberska stop losska halkaasaan ugu jeedaa 866 hoose 866 waa ku qori doonaa hadduu ilaahay idmo si caadi ina uu qoro waaye 866 inta hoos gadaal iska tirtiri doonaa saddexdaas number kadib aan si toos ugu qori doonaa si aan u arko 866 okay kadib meesha stop losska ii saaran meeshaas waaye hadduu ii saar okay hadduu ii saar waayn kolley normal wax ma dhibeyso laakiin hadda waxaan u malaysaa inuu si fiican ugu soo dhawaaday 15 minutkan inuu si fiican ugu soo dhawaaday badanaa 15 minutka koowaadna uu cabsidaas uu leeyahay suuqa inuu ka cabsi geliyo oo si xawli ku soo socdo marsi oo normal ugu socon waayay taas normal hore loo arkay in badan hore u arkaani ma ahan mid ugu cusub ma ahan marka insha allah iska sugaynaa natiijadii aan sugaynaa iyo meesha suuqna geeyo iyo meesha kale ayaan arki doonaa hadduu ilaahay idmo suuqan kolley zoonkaas waa zoonka aan maxaan lahay ay ku furanta waay New York Open New York zoonka ay ku furanteen waa zoonkaas sababtoo hadda waxaan u jeednaa New York markay furantay kadib maxaa dhacay intaan suuq qaadan New York markay furantay New York zoonkaas ay ku furantay kadib wax yar wuxuu sameeyey suuqa inuu kor aaday haddana isla markaa hoos ayuu soo aaday marka sugaynaa waqtigiisaan siin doonaa hadda daqiiqada ka harsan suuqa xoogaa ka harsan ilaa 12 daqiiqo waqtigiisa iska qaato waqtigiisa sugi doonaa hadduu ilaahay idmo marka insha allah wixii trade update ah waxaan dib ayaan kusoo sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo tradekaas insha allah waan hayn doonaa ilaa qaybtaas aan oo muhiimadda aan ugu socdo ilaa uu ka gaaraay waan hayn doonaa hadduu ilaahay idmo marka trade update-ka dib aan kusoo sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo assalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuhu mar kale anaa soo laabasho wanaagsan halkan waxaan ugu soo laabtay in tradekii haddaa aan qaatay meeshuu ku dhamaaday inaan isla fiirino tradedaa qaatay waxay ahayd tradeka halkan oo ahaa meeshaan ka qaatay GBP GBY zoonkan ahayd meeshaan ka qaatay waxay ahayd markii uu maray 193 sababtoo ah markii uu ku xirmay zoonkii aan rabay oo ahayd NY Open meel ka sareys markuu ku xirmay ayaan qaatay tradekii waxay markuu faa'iido una waday kadib waxaan arkay tradekii oo lagu soo laabtay oo almost stop losskii la soo dhawaaday stop loss badan aan waxaan sameeyaa 1 hourka kale oo waxaan ku manage gareeyaa hoostiisa wiiga badanaa waa ka dheereeyaa wax yar wiig waa ka dheereeyaa kadib stop losskayga waa la soo dhawaaday ma laga qaadin kadib tradekii saacaddii u dambeysay 15kii u dambeysay kor uu ku xirmay 15ka kale kor uu aaday almost 15ka kale wuxuu ku dhawaaday inuu ku dhaco meeshii oo aan rabnay oo calaamadan jaallaha noo saarneyd oo qorshahan u ahaa suuqina ugu baxno halkaas ahayd kulley maasha allah hadda wax xilliga afka noo saaran afurka noo soo dhow marka insha allah waxaan ku cafro alxamdulilah waa la helay maanta 3% aan ka haysta alxamdulilah marka tii shalay wax trade ma qaadanin laakiin daraan tradeka aan qaatay isniintina wuxuu ahaa trade qurux badan helay isniintii markaan dib u fiirino isniintii waa kana kan ma ahan isniintii tradeka aan qaatay wuxuu ahaa trade qurux badan tradekan waxaan u malaysaa in YouTube markaan soo dhigay dad badan ay la soo wadaagay oo dhahay macallin waa qaatay tradekan meeshaan markuu maray laakiin zoonka markuu maray waa iska xiray waxaan dhahay xilli dambe waaye ma rabi inaan trade sii hayo howlo kale sii qabsan lahaa tradekayga 1-2 markaan ku xiray waxaan arkay inuu aaday habeenkii xilli dambe markii la gaaray inuu TP imaaday qorshe meesha aan rabay inuu imaaday marka alxamdulilah maantana waxay noqotay maalintii labaad oo trade ah hadduu ilaahay idmo maalintii labaad trade ayay noqotay maanta waxayna noqotay tradekii sidan ayuu u dhacay trade halkaan ka qaatay wuxuu ahaa 192 ilaa 300 zoonkaas markuu ku xirmay ayaan qaatay kadib waxay daro dhan uu qabtay kadib hore u socday TPN almost uu smash gareeyay hadda waxaa ka harsan almost waxaa ka harsan wax ka yar 2-3 b baa ka harsan
116 bib laakiin markuu kanalkan xirmay suuq waa ka baxay 110kaas bib ugu baxay alxamdulillah 110 bib kulay hadii suuqan ka heshay iyo 4 bib aa sugtay wax data maahan halkaas ku xiray laakiin waxaan u jeedaa intaan wax duubista aan ku mashquulsanaaba inuu si gaar rabo meesha aan rabay laakiin go'aan hadaa leedahay wax laga rabaa go'aanka inaad ku xisaabtantid meeshaas suuq gal lahayd inaad og tahay meesha ku bixi lahayd inaad og tahay badana kanalka aan rabay inaan suuq ugu baxani kanalkan way oo London Open marka kanalkaas marka waa kala qaybiyaa waxaan u sameeyaa saddex u kala qaybiyaa bodiga iyo wiiga kor iyo wiiga hoos marka hadii badana wiiga hoos la idhaafo bodigiisa wiiga kor la gaarin inta u dhaxayso doo kanalka uu iska imaado xataa SNF way ugu filanta markaas taas waa qorsheyga aan ku xisaabtamo hadda waxa u jeedaa inuu TV hadda oo smash gareeyay hadda saacadan aan kula hadlayo TV uu gaaray marka alxamdulillah kulli trade halkaas ugu baxay waxaan rabaa inaan sawir ka qaato si aan meel u dhigto oo sawirkan iyo aan copy link marka insha Allah kulli trade halkaas rabaa inaan ku soo xiro Ramadan Mubarak meel kasta adduunka joogtiin afur wanaagsan xilliga afurkiya soo dhow dadka qaar way afureen laakiin aan kulli ma afurin dadka qaar way fureen ma sha Allah afur wanaagsan leeyahay kuwa afuray kuwa u soo socda afur wanaagsan insha Allah waxay noo balaamaan maalin kale iyo trade kale iyo jug kale haduu yaahidmo dhammaan asxaabta ku xiran Moga Forex iyo kuwa hadda ku soo xirmi doona waxaan leeyahay ku soo dhawaada waxbarasho qofkii rabo kulli banaanka taala meel cidla qofkii rabo in wax barto diyaar qofkii rabo in la taliyo si goyn la taliyo waa u haynaa haduu yaahidmo qofkii bilaw oo suuqan ka baran ama hadda ever jaanis fiican haysta waagi hore anka waa soo dhacnay waa soo kufnay meel badan soo marnay alxamdulillah hadda lugahana ku istaagnay marka alxamdulillah hadda qofkii rabo inuu liis ku istaago oo waa soo dhaweynayna linki wuxuu yaalaa description ku yaalaa la soo xiriir qofkii rabo oo u baahan in laga caawiyo suuqan ama in laga caawiyo strategy laga caawiyo in academy lagu xiro kula intaas waa haynaa haduu ilaahidma nala soo xiriira waa ku maasantiin daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh